kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad daawa doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday dagaal afar jiha oo ay ku qaaday Somaliland kuna fashilinayso aqoonsiga Israa'iil ay ka heshay Somaliland waxaan la wadaagi doonaa xog ku saabsan filan Soomaaliya oo heshay hub fara badan iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay dagaal wajiye kala duwan leh oo ka dhana Somaliland Masar iyo Ethiopia oo qarka u saaran in ay ku dagaalamaan gudaha Soomaaliya xilli Masar ay soo bandhigtay gaadiidka ugu badnaa ciidamo fara badan iyo diyaarado dagaal oo u soo dirayso Soomaaliya iyo Ethiopia oo dhankeeda ciidankeedu ay dhaqaaqi ciidan ka bilaabeen gudaha Soomaaliya Siciid Deni iyo Axmed Obi oo afka furtay iyagoona eedayn kulul u jeediyay beesha hawi ee degta magaalada Muqdisho maxay yihiin hadallada ka dhanka sumcadda Soomaaliya oo xalana ay ka sheegeen Siciid Deni iyo Axmed Obi xog ku saabsan ayaa idin la wadaagi doonaa iyo markab dagaal oo ay leedahay dawladda Turkiga oo ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo xoog laga helay hub fara badan oo Turkiga uu ku wareejiyay Soomaaliya qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawo doontaan barnaamijkan intuu hawada ku jiro balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhee kanaalkana subscribe dhee kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay banaanka keenay xog la yaab leh oo ku saabsan duulaan diblomaasiyadeed oo dawladdiisu ay ku qaaday Somaliland kaasi oo lagu hortagayo aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland dabayaaqadii sanadkii inuu yeeratay 2025 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu banaanka keenay weerar kala duwan oo wajiye kala duwan leh oo dawladdiisu ay ku wajahday Somaliland iyo aqoonsiga ay ka heshay Israa'iil kaasi oo sheegay hadda qarka u saaran yahay inuu guulaysto dagaalka diblomaasiyadeed ee dawladda Soomaaliya ay kaga hortagayso ictiraafka Somaliland iyo Israa'iil waraysi gaar oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wargeyska Ashraq al-Awsad waxa uu markaasi ku xusay in dawladdiisu ay qaaday dagaal wajiye kala duwan leh oo looga hortagayo aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israa'iil sidoo kalena meesha looga saarayo nidaamka gooni-goosadka ee ka jira Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu banaanka keenay in dawlado fara badan ay markaasi si weyn ugu taageereen qorshahan isla markaana ay dawladdiisu diyaar u tahay in awood kasta u isticmaasho si looga hortago gooni-goosadka iyo sidoo kale ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu markaasi sheegay dalal fara badan oo ku taageeraya arrimahan waxaana xusay in boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo quwado kale oo gobolka ay si weyn arrintan ugu taageerayaan isla markaana la doonayo in la go'doomiyo Somaliland waxa uu taasi ku daray Soomaaliya ay wado dagaal diblomaasiyadeed iyo dadaalo dheeraad oo la doonayo in lagu dhiso mowqif midaysan oo Carabta Islaamka iyo Afrikaankuba ay kaga soo horjeedaan tallaabada Israa'iil ay ku qaaday Somaliland kuna aqoonsatay uuna yahay markaasi aysan ka fiirsan madaxda Israa'iil madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay si cad oo aan ka gambasho lahayn ay u xaqiijinayaan in aqoonsi kasta oo la siiyo Somaliland uu yahay xadgudub ka dhan ah qawaaniinta caalamiga iyo ahdiga qaramada midoobay sidoo kalena uu halis ku yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo kala sheegay in qorshaha Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland uusan ahayn inay abaal u hayso dadka degan deegaanada waqooyiga Soomaaliya hase ahaatee Israa'iil ay doonayso inay caga dhigato marinka istiraatiijiga ee Bawel Mandeb ayna halkaasi ka maamusho isagoona xusay in markaasi tani ay tahay tallaabo Israa'iil ay doonayso in dabkii bariga dhexe hore ay ugu shiday ayna doonayso inay ku shido gudaha deegaanada ka tirsan Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu markaasi carabka ku adkeeyay in Soomaaliya aanay aqbali doonin in colaad loo soo waarido gudaha Soomaaliya isagoona xuseen Israa'iil haddii saldhigii ay ka samayto Somaliland ay dagaal toos ku qaadi doonaan waxaana markaasi xusay kuna hanjabay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay ka jawaabto tallaabo kasta oo Israa'iil ay ku soo caga dhiganayso Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay xogta la xiriirta dagaal saddex waji ah oo dawladdiisu ay ku qaaday Somaliland wajiga koobaad ayuu ku sheegay inuu yahay abaabulka cadaadis diblomaasiyadeed oo loo marayo qaramada midoobay midowga Afrika ururka Islaamka iyo markaasi ururada kala duwan ee caalamka waxaana sheegay in Soomaaliya taasi ay xubin buuxda ka tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururada Islaamka iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika taasi oo sheegay inay doonayaan in markaasi Netanyahu lagu cadaadiyo inuu markaasi ka laabto heshiiskii uu la galay Somaliland wajiga labaad ayuu ku sheegay dhismaha mowqif midaysan oo Islaamka Carabta ay leeyihiin kuwaas oo si gaar u bogaadiyay boqortooyada Sacuudi Carabiya oo xusay in boqor Salmaan bin Cabdulaziz iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ay hoosta ka xariiqeen ilaalinta midnimada Soomaaliya taasi oo la xiriirtay amniga guud ee badda cas
wuxuu sidoo kale wejiga saddexaad ku sheegay wadahadallo qaran oo dowladdiisu ay markaasi ka wado gudaha dalka iyo in la xalliyo tabashooyinka sidoo kalena markaasi la kala furfuro deegaanada Somaliland ay ka taliso si halkaasi looga dhiso maamul midaysan qorshahaas oo dhawaan ay shaaca ka qaadeen ila ka tirsan hay'adda nabad sugidda sirdoonka Soomaaliya kuwaas oo u sheegay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee laga leeyahay Mareykanka in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay suuragal tahay inay hubayso markaasi dhinacyo kala duwan oo ku sugan gobollo ka tirsan Somaliland oo tabashooyin xooggan ka qaba maamulka ka taliya Hargeysa dhammaan hadallada ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wareysigan cusub uu bixiyay waxay ku su'aadayaan waraysiyo hore oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay awood militari iyo mid ciidanba u adeegsato ayna suurtagal tahay haddii Somaliland aysan ka laaban tallaabada Israa'iil aqoonsiga u heshay sidoo kale Xasan Sheekh waxa uu ku hanjabay in dowladdiisu ay weerari doonto haddii Israa'iil ay soo saldhigato deegaano ka mid ah dhulka Soomaaliya gaar ahaan Somaliland halkaas oo cabsi xooggan laga qabo in Israa'iil ay saldhigyo militari ka samaysato daawadayaal qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhig kanaalkan subscribe dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan kusoo gudbino haddii aad hore noola joogteena ku mahadsanid daawada la jaanqaadka wararka iyo barnaamijyada halkan aan kusoo gudbino Masar iyo Ethiopia ayaa qarka u saaran in ay ku dagaalamaan gudaha Soomaaliya kadib markii shalayto ay Masar soo bandhigtay ciidankii ugu badnaa oo ay u soo dirayso gudaha Soomaaliya kuwaas oo wata diyaarado dagaal iyo hub casri ah oo aysan hore u sideen ciidamada kale Afrikaanka ay ku sugan gudaha Soomaaliya dowladda Masar waxay wasaaradda difaacu baahisay muuqaal ay ka soo duubtay mid ka mid ah saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada loo diyaariyay inay soo aadaan Soomaaliya kuwaas oo qayb ka howlgalka midowga Afrika una booqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bartamihii toddobaadkan socdaal ku tagay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar Qaahira waxay xustay in ciidamadan ay yihiin kuwa ka duwan kuwii hore ee midowga Afrika iyadoona ku faantay in ciidamadeedu ay kaalin xooggan ka noqon karaan dagaalka dhanka kooxaha argaxiso ayna ka duwan yihiin howlgalladii iyo ciidamadii Afrikaanka ee hore ugu sugnaa gudaha Soomaaliya waxay xuseen in ciidamadoodu ay yihiin kuwa markaasi qaba tababar watan hub gaar ah oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka iyo saanad militari oo dhammaystiran isla markaana ay kaalin weyn ka qaadan doonaan xasiloonida Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha argaxiso dhinaca kale xukuumadda Addis Ababa ayaa si weyn arrintaas uga carootay waxaana Ethiopia durbawa ay bilowday dhaqdhaqaaqyo militari oo ay ugu hortagayso in ciidanka Masar la keenay gudaha Soomaaliya Addis Ababa qaybo ka mid ah gobolada koonfurta Soomaaliya shalay waxay ku soo bandhigtay ciidankii ugu badnaa oo wata gaadiidka dagaalka oo ay ku jiraan saanad militari oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman beebayaal iyo taangiyo waaweyn iyo ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo kumanaan kor u dhaafaya waxaana taasi ay ku muujinaysay awoodda militari ay u leedahay in ay ka hortagto dhaqdhaqaaqa Soomaaliya ee Masar iyo sidoo kale in aysan aqbalinin in ciidanka Masar ay yimaadaan gudaha Soomaaliya Ethiopia ayaa hore isugu dayday markaasi dadaalo fara badan oo ay doonayso inay kaga hortagto ciidanka Masar ee la keenayo Soomaaliya iyadoona dib u dhacyo kala duwan oo ku yimid in ciidanka Masar la keenay gudaha Soomaaliya la soo wariyay Addis Ababa ku bixisay dadaalo dheeraad oo arrintaasi kaga hortagayso hase ahaatee Soomaaliya xilligan waxay u muuqataa laba dar mid dooro iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku jahwareersan yahay xiisadaha isdiidan ee ka imaanaya Masar iyo Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya oo isku haysta biyo xireenka Niil iyo in xiisadii Niil loo soo waarido gudaha dalka Soomaaliya wararka xogaya TV ayaa daawanaysaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo maalintii labaad ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa xalay markaasi ka dhawaajiyay hadallo la yaab ku noqday warbaahinta Soomaalida iyo bulshada Soomaaliyeed kadib markii Siciidine Axmedoob ay si toos ah weerar afka ugu qaadeen beesha Hawiye ee degta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo xalay kulan casho sharaf oo ka dhacay xerada xalaana dhexdeeda ka hadlayay waxa uu si toos u weeraray siyaasiyiinta ka soo jeeday beesha Hawiye isagoona xusay in horey 2021 xilliga ay mucaarad ku ayeen farmaajo ay meel ka si taagnaa jireen hase ahaatee maanta ay waayeen hal qof oo mucaarad ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeday beelaha Hawiye sidoo kale Siciid Cabdullaahi Deni si weyn muran u galiyay markaasi maqaamka caasimadeed ee Soomaaliya waxaana Siciid Cabdullaahi Deni uu afkiisa ka dhowray in Muqdisho ay tahay caasimadda Soomaaliya dhammaan socdaaladii kala duwanaa ee Siciid Deni uu ku tagay magaalada Muqdisho dhawaan madaxtooyada Puntland waxa ay afkeeda iyo qoraalkeedaba ka ilaalisay in ay qorto markaasi caasimadda Soomaaliya taas bedelkeedana ay u qoraysay in Siciid Deni lagu soo dhaweeyay Muqdisho oo aan maqaamkeeda la xusin Siciid Deni hore waxa uu marar badan muran u galiyay
doorashada muqdisho ee inay caasimad noqoto isagoona ku tilmaamay goobaan amni ahayn iyo goob aysan xasilooni ka jirin isla markaana ay waardiyaan ciidamo shisheeye siciidani sidoo kale waxa uu muran geliyey ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isagoona taas bedelkeeda ka doorbiday ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha Soomaaliya hase ahaatee siciidani hadal xalay taas ka duwan ayuu ka dhawaajiyey wuxuu xusay in markaasi muqdisho uu ka maqnaa in ku dhow 4 sano ay markaasi tahay goob aysan marnaba ka tegaynin wayna marti ku ahayn isla markaana ay kula dagaalami doonaan cid kasta oo markaasi uu sheegay in ay doonayso in iyadu isla haysiso magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sideen waxa uu sheegay in horey muqdisho uu joogi jiray haddana uu joogayo isla markaana cidna aan looga hareynin lanana wada leeyahay dhinaca kale xildhibaan dhaashana oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Puntland kana mid ah xubnaha gacnaha midig ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa goobtaasi waxa uu ku sheegay hadalla markaasi ka yimid dhinaca madaxtooyada Puntland kuwaas oo u muuqday in ay yihiin weerar afka oo lagu qaadayo dadka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidoo kale waji xumeyn la xiriirta ammaanka guud ee caasimadda Soomaaliya xildhibaankan oo ka mid ah xubnaha Siciidani afkiisa ku hadla waxa uu markaasi xusay in magaalada Muqdisho aysan ahayn goob amni ka jiro isla markaana hadda dhammaan darbiyada ay ku wareegsan yihiin ciidamo shisheeye oo ka tirsan kuwa Midowga Afrika taasna uu ku tilmaamay guul weyn oo la gaaray waxa uu markaasi uu qarsan waayay cuqdada gaamirtay ee maamulka Puntland ay u hayaan shacabka ku nool caasimadda Muqdisho iyo maqaamkeeda taasi oo ka baxsan doodaha mucaaradka ee la xiriira isku haysashada kursiga dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo dhankiisa halkaasi hadal ka jeediyay wuxuu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira siyaasadda iyo dagaalka adkaa ee soo dhexmaray isaga iyo madaxweyne Xasan Maxamuud iyo sababta haatan ku kaliftay inuu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Axmed Madoobe wuxuu xusay in magaalada Muqdisho uusan marti ka ahayn isla markaana uu u yimid arrimo la xiriira in la sameeyo wax heshiis lagu yahay aynana ka laaba doonin muddooyinkan dambe isla markaana 2 maalmood iyo markaasi wax la aysan joogi doonin Muqdisho hase ahaatee ay joogayaan inta laga dhameynayo laguna heshiinayo arrimaha la xiriira siyaasadda madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe sidoo kale waxa uu xusay in uu diyaar u yahay wada hadal oo la galo dawladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Maxamuud si kastaba haatee siyaasiyiintan oo haatan ku sugan xerada Xalane waxa la soo warinayay inay sugayaan kulan ay la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud kaas oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hase ahaatee madaxweyne Xasan Maxamuud oo bixinaya safar dibadeed oo kala xiriira koortaga dhaqdhaqaaqa Somaliland ee Israel ayaa la sheegay in uusan haysan waqti dheeraad oo kula kulmo siyaasiyiintan ku sugan xerada Xalane ee magaalada Muqdisho kuwaas oo doonaya inay kala hadlaan arrimaha la xiriira siyaasadda Soomaaliya ugu dambeyntiina dawladda Turkiga ayaa saanad military oo dheeraad ku wareejisay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii markab dagaal oo ay leedahay dawladda Turkiga uu ku soo xirtay galabnimadii shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaas oo markaasi muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya markabkan waxa markaasi la soo warinayaa in uu muddooyinkan dambe joogay xeebaha markaasi Somaliland kadib markii uu dabayaaqadii bishii markaasi January ka soo ruqaansaday dhinacaas iyo xeebaha dalka Turkiga maraakiib dagaal oo leeyahay Turkiga ayaa la soo warinayaa inay ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah xeebaha Soomaaliya oo ay ku jiraan Somaliland iyadoona dekedda Muqdisho shala gal markabkan uu ku soo xirtay markabkan waxa soo dhaweeyay wasiir duulaha gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka ee dhawaan la magacaabay iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana markaasi uu markabkan siday shixna taageero military oo Turkigu ugu talagalay Soomaaliya booqashada iyo soo dhaweynta markabka dagaal ee Turkiga ayaa ku soo beegmaysay xilli dawladda Soomaaliya ay markaasi siinayso dhismaha iyo tayeynta ciidanka qalabka sida ee markaasi Soomaaliya iyadoona la filayo in Turkigu uu Soomaaliya markaasi u tababaro ciidamo fara badan siyana taageero ka horeysa midii hore ugu taageeri jiray ee la xiriirtay dhinaca amniga dawladda Turkiga ayaa sare u qaaday ahmiyadeeda military ee gudaha Soomaaliya tani markii bisha December sanadkiina wadadhay Israel ku dhawaaqday inay aqoonsatay Somaliland Turkiga oo aqoonsiga Somaliland Israel ku sameeyay sabab la xiriira in Israel ay doonayso inay ka hortagto dhaqdhaqaaqa isballaarinta Turkiga ee Geeska Afrika waxa uu haatan kordhiyay sanadiisa military waxaana gudaha Muqdisho dhawaan ka soo degay diyaarado sida markaasi nidaamka cirka ee ka hortagay gantaalada
iyadoona sidoo kale la filayo in Turkigu saldhigyo waaweyn ka samayso deegaano ka tirsan markaasi gobolka Sanaag shabeellada dhexe iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya si uu isugu ballaariyo awoodda istiraatijiyadeed ee Turkiga ee Geeska Afrika. gudahaan daawadeelantaas wax ku warkaad kala socoteen kanaalka wararka Xukaya TV fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkaas subscribe dhesoo kale muuqaalkan like kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogaha wararka halkan aan ku soo gudbino.